Asalaamu calaykum kusoo dhawaaw channelka oo mahad misra haddaa dadka adduunka ku nool qofka aan aqoon buuxda u leeyahay waa naftayda laakiin xaqiiqdu inay ka duwan tahay laga yaabaa si aan u ogaano taas waxaan isweydiineynaa waa kee xayawaanka kugu duugan haddaba su-aashan si aan uga jawaabno waxaan u baahannahay inaan ka jawaabno 10 su-aalood oon hoos noogu soo diyaariyey waxaadna haysataa su-aal walba inaad uga jawaabtid 10 second haddaba haddaad rabtid inaad ogaatid waa kee xayawaanka kugu duugan su-aalahan ka jawaab su-aal walbana ood ka jawaabtid jawaabteeda meel ku qora sababtoo ah hadhow ay natiijadu gadaal ka anfici doontaa su-aasha koowaad dooro kalarka aad jeceshahay a guduud ama kalarka soo jiidashada b cagaarka kalarka doogga c jaalaha kalarka quruxda d cadaanka kalarka nabadda haddaad ee doorato waxaad ku guulaysatay 20 b 30 c 10 d 40 su-aasha labaad xageed ku dareentaa raaxada e biyaha dhexdeeda ama webiga b diyaaradda inaan daruuraha dhoofaan jeclahay c duurka ama hoodka dina dabka horteed inaan dabka kulaalaan jeclahay markan haddaad doorato waxaad leedahay 10 b 30 c 40 d 20 su-aasha saddexaad ayaa ah waa tee cuntada aad jeceshahay e mamacaanka b cuntada fudud ee jidadka c hilib haba i tusin d malaay iyo wixii biyaha ka imaada e 20 aa leedahay b 40 c 10 d 30 su-aasha xigta su-aasha afraad ayaa ah maxaa lagaaga guuleysanayna e baloonigii wixii la mid ah b artiska c science mathematics wixii la mid ah d dagaal uma gaaro wax walba xoogan ku xaliya haddaad doorato 10 aa leedahay b 30 c 20 d 40 su-aasha xigta su-aasha shanaad ma tahay ciyaaryaan fiican e waa dadaala dhinacayga b waxa ahay team leader c inaan keligay xoogeystaa jeclahay d inaan lii ciyaaraan jeclahay markan waxaad leedahay 40 b 20 c 10 d 30 lambar 6 ayaan maraynaa haddaba su-aashu waxa waaye waa maxay cabsida kugu weyn inaan meel mugdi keligay lagu xiro b asxaab la-aan sababtoo asxaabtii zaaid u jeclahay c nolol xorriyad la-aan ah iyo d oo ah in lagu ceebeysta ama lagu fadeexeysta public haddaad doorato waxaad leedahay 20
b 40, c 30, d 10. su-aasha toddobaad ayaa ah haddaa ku guuleysan lahayd bakhti nasiib 1 milyan ah maxaa ku sameyn lahayd? a adduunka dhan aan ku safri lahaa, b asxaabtayda dhan hadiyada u gadi lahaa, c macaawimaad ku bixin lahaa, d bakhti nasiibku maba aaminsani. haddaad doorato waxaad ku guuleysay 30, b 40, c 20, d 10. su-aasha 8aad haddaa ku go'doomi lahayd meel jasiirad ah oo saxaro ah maxaa sameyn lahayd? a waxa ugu horeeya dabaan shidi lahaa, b dadka amri lahaa ileen waxay u baahan yihiin hagaa, c dadka dhan niyad u dhisi lahaa, d na waxa ugu horeeya raadin lahaa waa biyo ileen bil waa dhimanaynaa. haddaa a doorato waxaad heli 20, b 10, c 30, d 40. 9 haddaa fursad u heli lahayd inaad fariin u reebtid jiil oo dhalan doonaan 1000 sano ka bacdi maxaa dhihi lahayd? a adduunka ilaali oo si fiican u ilaali sida gurigaaga camal, b jeceyl suubi waxaa u baahanta waa jeceyl, c adduunka meel walba ku safar si ood saaxiib badan u yeelatid, d na si fiican u shaqee si ood guul u gaartid. a waxaad leedahay 20, b 40, c 30, d 40. haddii lagu dhihi lahaa hal meel ku noolaa xageed dooran lahayd? a Amazon forest, b Paris Italy, c Bali Indonesia, d Everest. haddaba haddaa ka jawaabto waxaad leedahay a 30, b 20, c 40, d 10. haddaba waxaa la soo gaaray qaybtii xisaab xirta. haddaa ka jawaabtay lambar gaaraysa 100 ilaa 170 waxaa tahay bahalka la dhahay yey xor ah, waxaadna jeceshahay wax kasta inaad keligaa qabatid, waxaana haysataa xoog iyo karti aad ku gaari lahayd wax alla waxaad u baahan tahay. laakiin xasuusnaaw inaa mar walba aan laga maarmin adigana aad dadka maarmin. haddaa keentay tiro gaaraysa 180 ilaa 250 waxaad tahay shabeel, waxaad leedahay awood aan caadi ahayn iyo karti aan caadi ahayn, waa dhaqsi badan tahay, si dhaqsi badanna waad go-aan waa ku gaartaa, wax alla waxaad u baahan tahayna waad heshaa. haddaba awoodani waxay kugu diraysaa dadka waxayna ku kalifaysaa inay kaa fogaadaan, laakiin mar waliba adaa go-aanka iska leh inay dadka kaa soo dhawaadaan iyo inay kaa fogaadaan. haddaa keentay lambar gaaraya 260 ilaa 330 waxaa tahay bahalka geriga la dhaha, waxaa tahay qof bulshaawi ah, dadka jecel, asxaab badan, qosol iyo kaftan badan, qofkii kula joogan uusan ku agacjisaynin, mana jiro qof iska kaa fogeynaya. kama dambeystii waxaan soo gaarnay natiijadii ugu dambeysay oo ah haddaad keentay tiro gaaraysa 330 ilaa 400 waxaa tahay dad adduunka zaa'id ugu yar oo ah dadka masaakiinta jecel, waxaa tahay qofka dareemi kara qofka masaakiinta ah iyo qofka dhibaatadiisa. haddaba ogsoonow adiguna inaad u baahan tahay qofku dareema.
hana is iloobin naftaada inay kaaga baahan tahay daryeel midka adiga kala siinaysa la mid ah. Alloor haddaba hadda inta soo gaartay aad iyo aadan kaaga mahad celinaa marka ugu horeysa. Marka labaad ila soo wadaag waa kee bahalka kugu duugan ama xayawaanka kugu duugan. hana iloobin inaad wixii fikradaada ila soo wadaagtid insha Allah si aan horey ugu socdo. haddaad ka heshayna videogan iyo like iyo share inta waa ka iloobin. kanaalkayga haddaad ku cusub tahay subscribe dheh. waa mahadsan tahay kulanti dambe oo xiiso leh.